Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waxaan ku soo gudbin doonaa 10 dabeecadood oo haddii aad leedahay guul aadan gaari karin. Qiimeyn isku samee oo haddii aad 10 dabeecadood qaar ka mid ah aad leedahay, waa inaad bilowdaa sidii aad isaga reebi lahayd. Number 1, waad hami weyn tahay. Waxaad leedahay gool aan caqliga galayn oo waxaad doonaysaa inaad samayso waxyaabo aan macquul ahayn ama aad u adag. Tani waxay noqonaysaa mid waqti ku qaadata inta aad ku haminayso inaad gaadho waxyaabo aan suuragal ahayn. Number 2, khaladka waxaad u aragtaa inuu yahay fashil. Haddii uu qofka la sameeyo waxyaabo ka wanaagsan midda aad adigu hayso, waxaad isku aragtaa inaad fashilantay. Sidoo kale waad qarisaa khaladkaaga adiga oo ka cabsanaya inaad ciwoodo. Ma tihid midka khaladkiisa qirta oo casharka qaata. Number 3, naftaada kuma qancisid. Khaasatan marka aad khalad samayso, kor iskuma soo qaadid ee waxaad eedaysaa naftaada iyo adiga oo aan lahayn kalsooni. Number 4, waxaad ka cabsataa khataraha oo haddii aad samayso waxyaabo khatar leh, waxaad ka cabsanaysaa inaad fashilanto, weliba adiga oo ay kaa maqan tahay kalsoonidii aad ku guulaysan lahayd. Sidaa darteed ayaad jeceshahay inaad ka dheeraato waxyaabaha khataraha ah ee imaan kara. Number 5, waxay kaaga dhigan tahay miraha. Kuma raaxaysatid inaad wax cusub barato ama aad gasho loolan xiiso leh oo aad wax cusub ku tijaabiso, maadaama ay kaaga dhigan tahay inaad natiijo gaadho. Number 6, wax kasta 100% ayaad jeceshahay. Waxaad tahay mid jecel in wax kasta ay yihiin 100%, oo haddii ay taas la waayana dareemay fashil. Number 7, uma adkaysan kartid dhaliisha. Maadaama aad tahay qof aad u qiimeeya fikradaha dadka kale, haddana waxaad tahay mid aan aqbali karin oo aan u adkaysan karin marka lagu soo jeediyo dhaliil ama lagu eedeeyaba. Number 8, dadka kula shaqeeya ayaad cadaadis saartaa. Waxaad doonaysaa in qof kasta uu sidii aad adigu ahayd sameeyo. Waxaa laga yaabaa mararka qaar inaysan macquul ahayn oo aad eedayso dadka kula shaqeeya. Tani ayaa keenaysa in xiriirka kala dhexeeya dadka kale uu liito. Number 9, shaqada ma qaybisid. Maadaama aad doonayso in wax kasta 100% ay noqdaan, isla markaana aad ka cabsi qabto fashilka, ma aaminsanid dadka kale inay shaqada si fiican u qaban karaan, oo waxaad doonaysaa in wax kasta oo adigu dusha saarto. Number 10, waad wehsataa. Maadaama aad doonayso in wax kasta loo qabto si heer sare ah, ayaad noqotaa mid wehsanaya maadaama aad aaminsan tahay inaad 100% wax u qabato. Marka aad daawatay muuqaalkani, waxaad dareemaysaa in 10 dabeecadood ay xiriir la leeyihiin dabeecadahaaga. Fadlan iska dhowr 10 dabeecadood haddii aad doonayso inaad guul gaarto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.